sanadkii 1995 wiil la yiraahdo Andy ayaa helay hadiyad dhalasho oo ah alaabta lagu ciyaaro. Alaabtani waxay ka timid filimkii uu aadka u jeclaa. Filimkana wuxuu ku bilaabanayay sida tan: markab sahamin ah oo la yiraahdo Star Command ayaa 4.2 milyan sano oo iftiin ah u jira dhulka isagoo maraya meel aysan dadku horay u tagin. Qalabka markabka ayaa dareemay in noolayaal laga yaabo inay ku sugan yihiin meeriska aan la ogeyn. Markaas ayaa Buzzy iyo taliye Alicia go'aansadeen inay u leexdaan si ay u baaraan waxa meesha ka jira. Buzz ayaa mas'uul ka ahaa in uu baaro meeriska marka hore si uu u go'aamiyo in ay istaahisho in shaqaalaha kale laga kiciyo hurdada. Laakiin marka ay Buzzy iyo Alicia nadiifinayaan meelaha cusub, xididada waaweyn ayaa ku fiday agagaarka markabka. Si ay kooxdu u weynato, taliyaha ayaa la yimid askari cusub si ay ula socdaan. Inkastoo Buzzy uusan jeclayn inuu la shaqeeyo dad cusub sababtoo ah wuxuu u arkaa inay culays dheeraad ah yihiin. Si kastaba ha ahaatee, markuu arkay wejiga farxadda leh ee Feeder, Buzzy wuxuu ogolaaday inuu raaco si ay u sii wataan hawsha. Daqiiqada yar kadib, intay Buzzy iyo Alicia mashquulsanayeen, askariga cusub ayaa waxaa qabtay isla xididadaas waaweyn ee ku duuduuban markabka. Kadib labada labdooda waxay dareemayaan khatarta, waxayna bilaabeen inay ka cararaan xididadaas waaweyn. Isla markaasna cayayaan waaweyn ayaa bilaabay inay soo weeraraan. Intay ku ordayaan markabka si ay uga baxsadaan, waxay isticmaaleen awoodda muuqlaanta si ay waqti u helaan, laakiin saamayntu muddo badan ma aysan socon. Ugu dambayn, labadaas qof waa inay la dagaalamaan cayayaanka daba socda. Markii ay ugu dambayn gaareen markabka, Buzzy ayaa arkay Feeder oo dibadda ula dagaalamaya xididada si uu badbaado. Wuxuu go'aansaday inuu u baxo si uu u caawiyo, laakiin qalad xisaabeed awgii Buzzy wuxuu waayay qorigii uu watay, wuxuuna isagana gacanta u galay xididada waaweyn. Nasiib wanaag, isagoo kaashanaya Hawder, wuxuu dib u helay qorigiisa, waxayna si wada jir ah uga takhaluseen xididada. Markii ay ku noqdeen markabka, Buzzy wuxuu aaday qolka kontaroolka si uu u badbaadiyo kooxdiisa. Laakiin markii ay bilaabeen duulimaadka degdeg ah oo ay doonayeen inay kaga baxsadaan meeriska, shil ayaa dhacay. Daqiiqada kadib, dhammaan shaqaalihii waa in hurdada laga kiciyo, waxa uuna Buzzy dareemay in uu mas'uul ka yahay musiibadaas. Markuu ogaaday in awoodda xawaaraha la burburiyay gebi ahaanba, wuxuu weydiistay taliyaha oo sidoo kale ah saaxiibtiis ugu dhow inay wax ka qaban karto, sababtoo ah wuxuu u arkay in uu sabab u noqday in kooxdu ku godoonto meeriskaas. Laakiin taliyaha waxay ku qancisay in hawshu weli la dhammaystiri karo, waxayna ka codsatay Buzzy inuu ka caawiyo samaynta xawaare cusub oo awood u leh in uu markabka dib ugu celiyo dhulka. Caqabada ugu weyn waxay ahayd in isku darka xawaaraha cusub uu aad u xasiloonayn, marka waxaa loo baahnaa tijaabooyin badan ka hor inta aan loo isticmaalin sidii tamar rasmi ah. Markaas Buzzy wuxuu go'aansaday inuu noqdo tijaabiyaha, isagoo diyaar u ah inuu naftiisa halis geliyo si uu u tijaabiyo xawaaraha cusub. Hal sano ayaa ka soo wareegatay shilkii sabab u noqday in shaqaaluhu meeriskaas ku godoomaan, ilaa ay ugu dambayn kooxdu ku guulaysato inay samaysato xawaare cusub iyagoo adeegsanaya khayraadka badan ee meeshaas laga helay. Buzzy wuxuu isku diyaariyey inuu duuliyo markabka oo uu sameeyo tijaabadii ugu horeysay ee xasiloonida qalabka cusub. Inkastoo dadka ay dadaal badan sameeyeen si ay uga difaacaan naftooda halista, mararka qaar waxaa haddana soo weerara xididada waaweyn ee ku fiday meeriska oo dhan. Ka hor intaan Buzzy u gelin markabka, injineer ayaa siiyey qalab la yiraahdo Ethan, kaas oo ah kombiyuutar haga diyaaradda intuu ku jiro duulimaadka. Markuu helay shidaalkii, Buzzy wuxuu fuulay markabka wuxuuna bilaabay duulimaadka. Kadib markii la garay, Ethan wuxuu siiyey jihada saxda ah, wuxuuna u sheegay Buzzy in hawshiisu tahay inuu ku ordo meelaha bannaan ee isaga ka fog, uu ku wareego xidigta ugu dhow, kadibna uu ka gudbo gidaarka cuf isjiidka. Markii uu dhameeyey hawshiisii, Buzzy wuxuu ku soo noqday saldhigga. Dhammaan saaxiibadiisna aad bay ula yaabeen inuu soo laabtay. Markuu la kulmay Hawder, Buzzy wuxuu ogaaday inuu maqnaa muddo 4 sano ah. Farqigan weyn wuxuu ku yimid isku beddelka waqtiga. Markuu Buzzy uu gaaray xawaare sare oo duulimaad ah, waqtigiisu wuxuu noqday mid ka gaabis badan waqtiga dadka kale. Intuu safarka ku jiray, wuxuu ka booday daqiiqada yar, halka saaxiibadiisina ay sanado sii jireen. Taas micnaheedu waa intuu safarkiisu uu ka bato xawaare sare, waqti badan ayuu u boodaa mustaqbalka. Inkastoo Hawderna ay aaminsan tahay in la joojiyo safarada ilaa cilmi baaris cusub laga helo, Buzzy wuxuu ku adkaystay inuu soo dhameeyo hawshiisa. Isla maalintaas, Buzzy wuxuu ogaaday in Hawder ay halkaas joogto. Haweenaydu waxay u ballan qaaday inuu la kulmi doono ninka ay mustaqbalka yeelan doonto. Maadaama uu safar dheer ka soo laabtay, Buzzy wuxuu u baahnaa nasasho. Markuu u galay qolkiisa, wuxuu helay bisad robot ah oo loo soo diray si ay uga caawiso Buzzy inuu dareen ahaan u bogsado. Waxay wada sheekaysteen daqiiqado, kadibna Buzzy wuxuu aaday inuu cuno cuntadiisa si toos ah uyuuna u seexday. Habeenkii wuxuu ku riyooday maalintii uu kooxdiisa ka reebay meeriskaas khatarta ah. Subaxdii dambe, Buzzy wuxuu toosay isagoo go'aansaday inuu mar kale isku dayo inuu hawsha dhameeyo. Bisada ayaa weydiisay waxa uu u qaban karto si uu u caawiso. Buzzyna wuxuu u sheegay inuu isku dayo inuu xasil ka dhigo shidaalka markabka. Ka hor intuusan bilaabin safar kale oo waqtiga ah, Buzzy iyo Hawder way ismacasalaameeyeen, iyagoo samaynaya salaantooda sirta ah oo ah ilaa aan ka gudubno xuduudaha oo dhan inaan la istaagin. Mar kale Buzzy kuma guulaysan, qalabka speedkana weli ma xasilna. Markuu mar kale la kulmay taliyihiisa, wuxuu arkay in haweenaydii ay uur leedahay. Arrintan waxay socotay sanado badan. Mar kasta oo Buzzy uu ka soo laabto safar cusub, saaxiibtiis waxay ku jirtaa marxalad cusub oo nololeed ah. Isaguna weli waa mid dayar, balse shaqaalihiisii oo dhami way sii duqoobayaan. Markii uu ka soo laabtay safarkiisii ugu dambeeyey, Buzzy wuxuu galay qolka fadhiga ee Hawder, wuxuuna helay fariin muuqaal ah oo saaxiibtiis ay u reebtay. Muuqaalka fiidiyowga ah, Hawder waxay u sheegtay Buzzy in ay xanuunsan tahay oo ay u badan tahay in aysan noolaan doonin markuu safarkiisa ka soo laabto. Waxay sheegtay inay ka walwalsan tahay maqnaanshaha isbeyska iyo safarada hawada sare, laakiin waxa ugu badan ee ay ka murugaysan tahay waa inaysan Buzzy arkin.
arkin. intii uu muuqaalka socday Yace oo ah ilma abtigeed ayaa soo gashay qolka waxayna tiri markay weynaato iyaduna waxay rabtaa inay tagto spaceka. ugu dambeyn Hawder waxay macsalaamaysay saaxiibkeeda waxayna ka codsatay inuu u cafiyo inaysan u joogin marka inuu hawsha dhameeyo. isla markaas taliyaha cusub ee Kaal ayaa soo galay qolka wuxuuna sheegay in caruurnimadiisii uu taageero weyn u ahaa Boozy. wuxuu kaloo sheegay in go'aan laga gaaray in la joojiyo hawsha oo ay ku noolaadaan meeriskaas halkii ay ku sii wadi lahaayeen ayna joojiyaan isku dayga ah inay ku noqdaan dhulkaas. waxaa xitaa jiray koox horey u bilaabay inay dhisaan gaashaan leesar ah si uu uga ilaaliyo xayawaanka halista badan ee halkaas ku nool. laakiin Boozy ma aqbalin fikradaas. wuxuu weli rajo ka qabaa inuu xasil ka dhigi karo qalabka xawaaraha si dadku ugu laabtaan dhulka. markii uu tagay qolkiisa bisada robodka ah ayaa u sheegtay inay u hayso war wanaagsan. waxayna u sheegtay in uu 62 sano u hurtay cilmi baaris si uu shidaalka u xasiliyo. ugu dambeyntiina uu helay isku darka saxda ah ee keeni kara in dadka lagu celiyo dhulka. daqiiqada kadib 2 wakiil oo amniga ah ayaa yimid waxayna sheegeen in loo yimid si loo qaado bisada sababo amni darteed. markaas Boozy wuxuu qaatay sanduuqa lagu qaado robodka wuxuuna codsaday dhowr daqiiqo si uu saaxiibkiisa ula hadlo balse halkii uu macsalaamayn lahaa wuxuu robodka la booday daaqada. labadooduba waxay u socdeen saldhigga duulimaadka. markii ay samaysteen qalabka xawaaraha cusub iyadoo la raacayo formulo cusub oo bosada samaysay waxay si qarsoodi ah ku galeen markabka waxayna bilaabeen safarkooda cusub. laba ka tirsan ciidamada amniga ayaa isku dayay inay joojiyaan laakiin Boozy isagoo kaashanaya bisada wuxuu si degdeg ah u kiciyay markabka. markan xawaaraha wuxuu gaaray 100% shidaalkuna wuu xasilay. tani waxay la micno tahay in hawshii la dhameeyay dadka oo dhanna lagu celin karo dhulka. markuu saldhigga ku noqday Boozy wuxuu arkay gaashaankii lesarka ahaa ee baansan dhisi rabay. markabka ayaa ku degay meel fog oo meeriska ah wuxuuna tuuray falaar iftiin oo calaamad ah si uu ugu yeero kooxdiisa inay soo badbaadiyaan. laakiin Boozy wuu yaabay markuu arkay qof qarsoon oo soo gaaray isagoo xirnaa dhar yaab leh. qofkaas ayuu dhulka dhigay Boozy si aysan u arkin robot weyn oo cabsi leh oo meesha maraayay. si lama filaan ah makhluuqaasi wuxuu markabka dusha uga dhigay saxan weyn kadibna labadoodii way lumeen oo waxay ka baxeen meesha. markuu arkay arrintan Boozy wuu argagaxay balse qofkii qarsoonaa ayaa u sheegay in la geeyey markabka Sergi waana markab weyn oo dusha kaga duulaya meelahaas. daqiiqada kadib gantaal ayaa lagu soo riday waxayna labadoodii u carareen si ay u badbaadaan iyagoo ka dhuumanaya. gabadhu waxay iska bixisay koofiyadeedii waxayna muujisay qof ay dhab ahaantii tahay waa Yace gabadhii ay awoowe u ahayd Hawder. markaas ayaa bisada robodka ahayd u sheegay in safarkoodii ugu dambeeyay ay ka maqnaayeen 22 sano sababtoo ah waxay gaareen xawaaraha ugu badan ee spaceka. Yace waxay u sheegtay Boozy in dhowr sano ka hor markabkii Sergi yimid robotyaduna ku hareereeyeen saldhigga. si uu dadka deegaanka u ilaaliyo taliyaha saldhigga wuxuu amray in gaashaanka lasirka la shido. taasina waxay keentay in dhammaan dadkii ay ku xirmaan gudaha saldhigga ay banaanka u soo baxaan. Yace markaas waxay go'aansatay inay Boozy geyso si uu la kulmo kooxdeeda. waxayna u sheegtay in qorshe ay hayso balse waxay u baahan tahay baylot si ay u hirgeliso qorshahaas. markii ay tageen xarunta Yace Boozy wuxuu la kulmay kooxda inteeda kale wuxuuna mooday inay yihiin dad spaceka hore u tagay sida saaxiibtiisa hore. si wada jir ah waxay sameeyeen qorshe cusub. Boozy wuxuu sheegay in xal kasta uu ku jiro haddii lagu rakibo xawaaraha ee uu adeegsaday safarkii ugu dambeeyay markabka Star. si taas loo sameeyo waxay u baahan yihiin inay ka gudbaan gaashaanka difaaca kaas oo la joojin karo kaliya marka markabka Sergi la burburiyo. sidaa darteed wejiga koowaad ee hawsha waa in la burburiyo robotyada shisheeyaha ah. markii ay isku diyaarinayeen hawsha robot ayaa soo weeraray xarunta oo wuxuu qabtay Boozy. robotka wuxuu isticmaalay qalab isu gudbin si uu ugu celiyo markabkii Sergi laakiin Easy iyo Sokis ayaa ku guuleystay inay joojiyaan. kooxda inteeda kale waxay isku dayeen inay caawiyaan balse markaas Boozy wuxuu ogaaday in dhammaantood ay yihiin askar cusub oo aan khibrad lahayn. kadib isku dayo badan oo guul darro ah Mo ayaa ugu dambeyn ku guuleystay inuu laad ku dhufto qalabkii wuxuuna ka hortagay in Boozy la qabto. si kastaba ha ahaatee robotka weli wuu taagan yahay wuxuuna u diyaarsan yahay dagaal culus in uu qaado. Boozy wuxuu ku guuleystay inuu ka gooyo gacanta robotka kadibna Mo wuxuu rasaas kaga dhuftay madaxa. inkastoo ay dagaalka ku guuleysteen Boozy wuu diiday inuu la sii shaqeeyo askarta cusub wuxuuna sheegay inuu hawsha kaligiis dhamayn doono. laakiin si uu u dhex galo markabka Sergi Boozy wuxuu u baahan yahay diyaarad saldhigga u dhow balse diyaaradaha yaalla halkaas waxay u jiraan masaafo dhan 4 kiiloomitir. sidaa darteed Easy iyo kooxdeeda waxay go'aansadeen inay ka caawiyaan Boozy in la geeyo halkaas. daqiiqada kadib markay dhaqaaqeen robotkii dhaawacmay ayaa soo toosay wuxuuna bilaabay inuu raadiyo iyaga. markay gaareen bakhaarkii diyaaradaha Boozy wuxuu u sheegay kooxda in ay ku laabtaan xarunta HQ sababtoo ah wuxuu doonayaa inuu keligii sii wadi doono hawsha. gudaha bakhaarka Boozy wuxuu helay dharkii hore ee spaceka uu horay u xiran jiray. markuu gashaday wuxuu arkay in Easy iyo asxaabteedii ay meesha joogaan. kooxdu ma aysan raacin amaradiisa oo waxay go'aansadeen inay isaga la socdaan. Mo ayaa si kama ah u riday furaha gaariga taasina waxay dhaqaajisay alarmiga. shakigaas wuxuu soo jiitay boqolaal makhluuqaad kuwaasoo bilaabay inay soo boraarugaan. markaas waxay isku dayeen inay qorshe sameeyaan si ay u baxsadaan. Easy waxay soo jeedisay in la isticmaalo habka muuqlaanta ee dharka si ay uga gudbaan iyagoo aan la arkin. Boozy wuxuu si guul leh ugu shubay shidaalka markabka ka hor inta aysan waqtiga muuqlaanta dhamaanin. laakiin kooxda inteeda kale ma ogeyn in muuqlaanta waqtigeedu uu kooban yahay waxayna ku xanibmeen bartamaha jidka. markii makhluuqaadkii ay arkeen saddexdii xubnoodna halis ayay mar kale galeen waxaana muujiday birta degdega ah ee badbaadada. markuu sidaas yeelay darkiisii wuxuu isu bedelay furuut weyn oo qosol badan taasoo u suurta gelisay inay gaaraan markabka. Boozy markiiba wuxuu shiday matoorka waxayna kooxda oo dhan si
si nabad ah uga baxsadeen halkaas. Intii ay duulayeen waxaa la weeraray markab Sergi taasoo keentay in ay si degdeg ah ugu degaan meeriska si ay uga baxsadaan cadowga. Boozy ayaa isku dayay inuu dayactiro markabka oo waxyeelo ka soo gaartay marka uu ku dhacay dhulka. Yacy waxay soo jeedisay inay lug ku tagaan xarunta u dhow si ay uga helaan qalabka ay u baahnaayeen. Daqiiqada kadib markay galeen xaruntaas, bisadu waxay heshay qaybtii muhiimka ahayd ee loo baahnaa. Laakiin intaysan markabka ku noqon, si lama filaan ah ayuu u dhaqaajiyay nidaamka amniga, waxaana kooxda lagu qabtay qalab cuf isjiid ah. Kadib markii ay daqiiqada ku xanibnaayeen gudaha, waxay si wadajir ugu fekerayeen qorshe, waxayna go'aansadeen inay si wadajir ah u riixaan si ay u burburiyaan qalabka kontaroolka. Ugu dambayn waxay ku guulaysteen inay iska xoreeyaan oo ay sii wataan hawshooda. Burburka qalab xakamaynta wuxuu sababay qarax weyn taasoo qayb ka mid ah xarunta burburisay. Intii dadka kale ka cararayeen si ay u badbaadaan, Boozy wuxuu u orday si uu u soo qaato qaybtii markabka, laakiin wuxuu si dirqi ah ugu dhacay qarka dhagax meesha yaalay. Nasiib wanaag, mar kale waxaa badbaadiyey askartii uu horay u yaraystay kuwa uu arkay inay yihiin dad khibrad la'aan ah. Markaas laga bilaabo, Boozy wuxuu bilaabay inuu qiimeeyo shaqada kooxda. Intii ay nasanayeen oo ay cunayeen cuntadoodii, Boozy wuxuu dareemay in ay wax khaldan yihiin. Halkii hilibka uu dhex fadhin lahaa labada rooti dhexdooda, hadda rootiga ayaa dhex fadhiyey laba hilib dhexdiisa. Waxay u muuqataa in fikradda saangawidka la bedelay 100 sano ee la soo dhaafay. Markii ay ku soo laabanayeen markabka, kooxdu waxay la kulmeen robot cusub oo aad uga halis badan kuwii hore u eryanayay. Boozy markaas wuxuu fahmay in makhluuqaasi u socdo isaga keliya. Wuxuu u sheegay asxaabtiisa inay dib ugu noqdaan markabka, isaga oo isku dayaya inuu cadowga mashquuliyo. Boozy wuxuu isku dayay inuu ka baxsado robotka weyn, laakiin wuu qabtay. Waxaase yaab ahayd, robotka wuxuu aqoon u lahaa magaca Boozy, wuxuuna halkii uu weerari lahaa u soo bandhigay inuu la tago markabkiisa. Laakiin isla markaas askartii cusub ayaa soo baxday, waxayna weerar ku qaadeen robotka. Markaas waxay qodeen god dhagax ah si ay uga baxsadaan. Markaasi robotkii weynaa wuxuu u yeeray ciidamadiisa kale si ay uga caawiyaan inay qabtaan Boozy. Markii ay gaareen markabka, bisada wuxuu sheegay inuu u baahan yahay 5 daqiiqo si uu u rakibo qaybtii ka halowday markabka. Intii ay sugayeen, waxay go'aansadeen inay markabka kor ku dul sabayaan si aysan robotiyadu u gaarin. Laakiin cidna ma ogeyn in makhluuqaadkani ay duuli karaan. Markaas waxay sii wadeen eryadoodii. Mo iyo Dai ayaa bilaabay inay qarxiyaan robotiyadii, halka Boozy iyo Yacy ay gacanta ku hayeen jihaynta markabka. Daqiiqada kadib, bisada waxay dhamaysay dayactirka markabkiina wuxuu diyaar u noqday duulimaad. Laakiin Yacy ayaa qalad gashay, waxayna si kama ah u tuurtay shidaalkii. Gabadhu waxay isku dayday inay dib u hesho qalabka xawaaraha, balse mid ka mid ah robotiyada ayaa xaday, wuxuuna u gudbiyey shidaalkii markabka Sergi. Markaas Boozy wuxuu qirtay in hawshii ay ku guuldaraysatay, wuxuuna go'aansaday inuu iska dhaafo. Si lama filaan ah, robotkii Alpha ayaa yimid, wuxuuna qabtay Boozy, wuxuuna isna u gudbiyey markabka cadowga. Markuu halkaas tegay, Boozy wuxuu ogaaday in ninka hawshan dhan hogaaminaya uu yahay isaga laftiisa oo 50 sano ka weyn. Intii ay wada hadlayeen, bisada oo iyaduna ah nooca duqoobay ee robotka oo aad u dhaawacmay, wuxuu ka codsaday Boozy-ga duqoobay inuu u sharxo Boozy-ga dada yar qorshihiisa. Markaas ayaa Boozy ogaaday in naftiisa weyn oo ah Boozy-ga duqoobay uu isaguna horay u tijaabiyey safarka xawaaraha space-ka. Laakiin si ka duwan isaga, markuu ku soo noqday saldhigga, waxaa loo arkay dambiile sababtoo ah wuu xaday markabka. Taliyaha Banson ayaa amar ku bixiyey in la xiro. Sidaas darteed, Boozy-ga weyn wuu ka cararay, wuxuuna aaday meel aad u fog isagoo ku duulaya xawaare aad u sareeya. Wuxuu safar ku maray qarniyo badan, wuxuuna gaaray mustaqbal ay ku jiraan tiknoolajiyo la yaab leh. Markaas ayuu fahmay haddii uu qalbka xawaaraha u isticmaali karo inuu u safro mustaqbalka, maxaa u diidaya inuu ugu laabto waqtigii hore si uu u joojiyo markabkiisii inuu ku dhaco meeriskaas. Haddii uu taas sameeyo, shaqaalaha oo dhan si nabad ah bay ugu noqon doonaan dhulka, wuxuuna mar kale arki doonaa saaxiibtiis Alicia. Laakiin intuu tijaabinayay safarka waqtiga, qalbkii xawaaraha waa uu burburay. Sidaas darteed, wuxuu hadda rabaa inuu isticmaalo shidaalka uu hayo Boozy-ga dada yar. Laakiin Boozy-ga cusub ma ogolaan karo taas. Haddii ay u laabtaan waqtigii hore, Alicia marnaba mala kulmi doonto saaxiibkeeda, waxaan marnaba u dhalan doonin Yacy. Wax kasta oo ay Alicia iyo Boozy-ga weyn ka dhiseen meeriskaas waa ay dabar goy doonaan, dad badanna marnaba ma dhalan doonaan. Markaas Boozy wuxuu go'aansaday inuu la baxo qalbkii, laakiin Boozy-ga duqoobay wuxuu go'aansaday inuu ka dhabeeyo qorshihiisa, xataa haddii ay u baahato inuu naftiisa kale burburiyo. Intuu Boozy-ga cusub ka fikirayay sida uu u badbaadin lahaa saaxiibtiisa, Yacy waxay amartay kooxda inay dhammaantood markabka fuulaan, waxayna dhaqaajisay qalab robot ka mid ah robotiyada uu horay u tuuray. Sidaas darteed, dhammaan kooxda waxaa lagu loo gudbiyey markabka Sergi. Markii Boozy-ga weyn isku dayay inuu tirtiro wax kasta oo ay kooxdiisu dhiseen, bisadu wuxuu ku tuuray daawo hurdo oo qoorta kaga dhacday, taasoo joojisay. Robotka wuxuu muujiyey inuu doorbidayo Boozy-ga cusub, wuxuuna ka caawiyey inuu baxsado. Dhanka kale, Yacy iyo kooxdeeda waxay fuuleen markabka, waxayna bilaabeen inay raadiyaan saaxiibkooda. Boozy wuxuu helay Ethan oo ah kombuyuutarkii hagsayey, wuxuuna ka codsaday inuu kiciyo burburka iskiis u dhaca ee markabka muddo 2 daqiiqo gudahood. Isla markaas, taliyaha robotka ayaa soo muuqday, wuxuuna weeraray Boozy. Yacy iyo bisadu waxay soo muuqdeen daqiiqada kadib, waxayna ka caawiyeen Boozy inuu iska celiyo cadowgii. Saddexdoodii waxay si degdeg ah ugu gudbeen markabkii, halkaasoo Boozy-ga weyn isku dayayo inuu joojiyo qaraxa loo qorsheeyey. Markii dhammaan kooxda ay markabka fuuleen, Boozy wuxuu isku dayayaa inuu shidaalka dib ugu shubo markabka, laakiin waxaa dhacaya qarax weyn, waxaana dhammaan lagu kala tuuray hawada sare. Boozy wuxuu fuulay markab yar oo hawada dul sabaynaya, laakiin Sergi ayaa weeraray, wuxuuna ka xaday qalabkii xawaaraha. Markii uu Sergi isku dayayo inuu burburiyo Boozy wuxuu iska soo tuurayaa markabka, wuxuuna toogtay shidaalkii uu Sergi hayay. Talaabadaasi waxay keentay qarax weyn oo meesha ka
saartay cadowgii naxariista la'a. Buusi wuxuu markaas u duulay dhinaca markabka ay saaxiibadii saaran yihiin si uu u joojiyo inuu dhaco, laakiin markabku aad buu u culus yahay wuxuuna ku dhacayaa xawaare sare. sidaas darteed Yacy waxay ka codsatay Buusi inuu xasiliyo markabka, iyada iyo kooxda kalena ay isku dayaan inay si degdeg ah u dejiyaan. iyagoo iskaashanaya, kooxda waxay ku guulaysteen inay si nabad ah u soo degaan, dhammaantoodna waa nabad oo waa dhaawac la'aan. si kastaba ha ahaatee, shaqada way guuldaraysatay sababtoo ah qalabkii xawaaraha waa uu burburay. hadda Buusi wuxuu la qabsan doonaa nolosha meeriskaas sida ay sameeyeen saaxiibadiisa kale. daqiiqado kadib, taliyaha Bansan ayaa yimid isagoo wata ilaaladiisa, wuxuuna dib ugu celiyey dhammaan kooxda saldhigga. inkastoo Buusi uu jebiyey sharciyo badan, taliyaha ma doonayo inuu xabsiga geeyo. taabadalkeed wuxuu siiyey fursad uu ku bilaabo koox cusub oo ah ciidamo u tababaran qaybta ilaalinta cilmiga cirifka sare. taliyaha wuxuu soo bandhigay wakiilayaal wanaagsan, wuxuuna ka codsaday Buusi inuu doorto kooxdiisa. laakiin Buusi wuxuu u sheegay inuu horay u haystay kooxdiisa, wuxuuna go'aansaday inuu sii wado howlgallada hawada sare isagoo la socda saaxiibadiisa cusub.